بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله مركل اسكو كان سوعليي. إله سبحانه وتعالى يا مهد يا هيبد يا شرف يا كرامه يا مان اسكاله. إلهي سلام كان غديغي أنغو خوغ يحيلن منكو كانسن. الحمد لله نعمة الإسلام، الحمد لله نعمة الإيمان، الحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله شكر لله. سوري واذا أحباب في الله دمانتي وأنا سلام يا ملك عالمك قال سعتان إلى سبحانه وتعالى دنبيد والدينتين هداف وإنت حنوسا الله عافية، إنت مروقيسن مرقت الله كدرقاد، وإنت مرادك لمرادك وذا خير الله سيو، إنت لمتين الله ونحرست قبريته واسعي آمين يا ربي. سوري واذا أحباب في الله أحبابي في الله maalinteeni habeenkeena kuwa khayr qaba Allah inooga dhigo, kuwa cibaado qurux badan la yimaado Allah naga dhigo, huwa in badan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xusaha Allah naga dhigo. aamiin. Axbaabi في الله soo dhawaada. maanta waxa wada axbaabi في الله qisas laga arkay dikriga laa xawla walaa quwata ilaa billah, dikriga xawqalada maasha Allah, dikriga xawqalada fadaaishiisa axaadiista kusoo aruuray iyo inta asxaabi nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u dardaarmay dikrigaas horey baa uga soo hadalnay. axbaabi في الله janalkeyga way ka buuxaan qisasul xawqala iyo fadaaisha iyo macni fadliga uu leeyahay insha Allah. marka maanta qisooyinkan way noo soo gaabinayaa, ka faa'iideysta axbaabi, ninka dhanna waa ogtihiin dikrigan iyo qiimihiisa. ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحوي إله يو حيلد إيو قوة مره أذيق أيا حيلد إيو قوة له. إله يو وحاسي سماء، إله إي قرقار، إله أرمهيق إسكوك دبرد، إله أرمهيق إي هجاتي سيدات ويا أحبابي في الأمريكا مرول بكل ذكري حوقلده معنيه وردقا جمال لها كتشر إن شاء الله. أذكرت هذا الصباح مساقة هكتشر إن شاء الله وتكفى إيديسا إلهين قوة بكسينيا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحكوا عد إنه حلق آذانك مرك لمرة يحيي على الصلاة حي على الفلاح، مرك لمرة إنه يجري النبي عليه الصلاة والسلام حلق لها. علماء waxay ku fasireen inaad xoog iyo xeelad aad cibaadada ku gudato salaada aad helayso aad dikrigan ku celceliso Allahu akbar awood buu ku siinayaa dikrigan. marka insha Allah ka faa'iideysta axbaabi في الله. أحباب في الله أنت قصوين كجودة قليل لمبرك هالك سارن واللمبرك جبدي حنون سنيد شياطين تأحباب في الله يجالسين ين قصة دخري وقصة هاللي. ما شاء الله أحبابي في الله جبد ولا شينا وحين وجبه هنتا يجرجار يجرب استاج سيدان جبد ولا شين وجبر يرؤس ديو تمنشره غير كودي أنا الله اللي هو يديد وما حنوسن بهد ميل كلا يوتشرا ورير الضير ومساكينة ما مدو حنوسن تهاي برو أي مدح وقتها الله مس عنكرت ما مدى سعد كي bay buradu ka qabsatay oo labada lugood saamarka isku daba dhigtaba way dhacaysaa. maamada in la garab gala maahan, laakiin indhaheedii hadalkeedii hurdadeedii waa caadi. marka waxay tiri Ethiopian tagay markii waxa la yiraahdo qalinkii waa isaga soo laabtay bay tiraahdo waxaan ka baqay inuu dib ii geysto. marka axbaabi في الله reerku waa reer sas ah, hooyadii reerka dhan way xanuunsantaa oo dhuliyaal weeye. gabadhu waa gabar yar oo 18 sano jirta, meelna laguma aamini karo, xataa reerka laguma aamino. maamadu waxay danka Ethiopia aaday waan ka haystay waayo mar walba way dhacaysaa, quraan laguma akhrin karo, mar walba gabadha shayaadiinta xataa salaadaha way u diidayaan, cibaadada way u diidayaan. marka walaalayaal gabadha waa inii sheegay inay tashkiilin ku jirto horeyna ay macnihi shakigaasna ay shayaadiintu ku beereen shayaadiinul insina ugu heliyaan. waa idin sheegay axbaabi في الله. marka gabadha walaasheena garab inaan siinaa rabna axbaabi في الله. magaaladii joogto wiil joogaa la hadlay, wuxuu ii sheegay sheekh ma sha Allah cilaaj fiican inuu magaaladaas uu hadda yimid oo dad badan Ilaahay ku caafiyay. marka walaalayaal hooyadii marka la hadlay waxay tiraahday garab istaag baan kaga baahanahay. marka qof walba oo walaal ah oo daawan dhageysanay codkayga reerka lambarkoodii waa kaas, waxaan walaalayaal awoodino aan u dirno reerka qof walba oo igu xiran. waxaa ka codsanayaa reerka walaalaha ee masaakiinta aan garab istaagno si gabadha cilaajka loo geeyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weydiinay inuu Ilaahay ku caafiyo gaalada iyo gaalaysiga iyo balaayada shayaadiintaas Ilaahay uu ka badbaadiyo axbaabi في الله. runtii ajar weyn weeye, qof dhan oo bin aadana ayaad badbaadisay axbaabi في الله iyo jiilkii gabadhaas mustaqbalkeeda dhan.
marka walaaliya arrintaasi kala qayb qaata dhammaanteen aan ka qayb qaadano qof walba wixii awoodiisa ah gabadha yarta walaasheena aan u dirno wiil caawinaya oo isku magaalo joogaana waa u helay oo insha allah meeshaas geynaya dee reerkoodii qoyskooduna way ka qayb qaadanayaan oo gabadha way raacayaan marka la cilaajinayo oo maamada waa ka wada hadalnay marka walaalayaal insha allah waxaa idinka rajeynayaa inaadna garab istaagtaan gabadha walaasheena aan garab istaago waxaa guda gelin axbaab filaa qisooyinkii qisada koowaad waxaa ka sheekeynaysa gabadhan waxay tiraahday waxa ay haleelay bay tiri xanuun aad ayaan u xanuunsaday bay tiraahday kadib waxay tiraahday qur-aan baa isku akhriyay sixir baaba iga dhex hadlay noloshuna way igu adkaatay bay tiri aad ayaana xanuun u dareemayay sidoo kale waxay tiraahday noloshii caadiga ahaydna way igu adkaatay deyn ayaa la igu yeeshay faqri iyo gaajo waxaan bartay bay tiraahday cilaaj ayaan bartay bay tiraahday oo qof ii sheegay inaan sameeyo istighfaarta xawqalada ayaan aad u badin jiray bay tiri suuratul faatixana waxaan ku tufan jiray bay tiraahday biyo kadibna waa cabi jiray qaarna jirka ayaan marsan jiray bay tiri alxamdulilah markaa muddo waday bay tiraahday xanuunkii iyo rafaad badan aan maray bay tiraahday markaan cilaajka waday alxamdulilah waxay tiraahday waan buskooday alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala wuu i caafiyey shayaadiintii iyo wixii dhibaya ilaahay wuu iga dulqaaday irsaaqad ayuu ilaahay i siiyey irsaaqad ayuu i waasiciyey shaqo ayaan helay deyntii ayaan iska bixiyey mana joojiyey bay tiraahday waan isku ilaaliyaa bay tiraahday labada dikri iyo suuratul faatixa alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh labada qisadaydu wataasay tiraahday gabadhan qisadan axbaab fillah iyadana dikriga xawqalada ayay ku salaysan tahay maasha allah waa qisooyinka igu cajiibsan markaan soo xasuusto qisadan axbaabi fillah waxaa ka sheekeeyey sheikh wuxuu yidhaahday sheekhaani waalidiin ayaa waxaa ka xanuunsanayd gabadhooda marka waxay gabadha mar walba waa lasoo dooni jiray kadibna waa laga noqon jiray mar walba gabadha xisaab male inta nin soo doontay ee ka noqotay marka waalidiintii way yaabeen waxay isdhaheen gabadhiina waa gabar qurux badan nasab wanaagsan kasoo jeeda diin iyo akhlaaq leh maxaa khaldan ba isdhaheen waalidiintii marka go-aan waxay ku gaareen waalidiintii labadii hooyadii iyo aabihii inay gabadhooda ilaahay u baryaan marka waxay badin jireen dikriga xawqalada habeen marka habeenada kamid ah habeenkii bilaabayeen cilaajka ayaa waxay sameeyeen aabihii wuxuu go-aan bay qaateen aabihii wuxuu dhahay aniga habeenka gelinkiisa hore ayaan dikriga akhrinayaa buu dhahay habeenkii gelinkii hore ayuu aabihii dikriga waday waa dikriga laa xawla walaa quwata ilaa billaah si ilaahay subxaana watacaala ugu kashifo gabadhooda waxa haya markii saq dhexe la marayay hooyadii baa kala wareegtay hooyadiibaa ilaa salaada subax gaarsiisay markii waagii baryay oo odaygiibaa seexday odayga markuu seexday wuxuu ku riyooday meesha gabadhooda sixirka la sixray uu yaallo ayuu ku riyooday weliba riyadii dhexdeeda ayaa meeshii la geeyey oo la tusay uu sixirka yaalay odaygii markii salaadii subax hooyadii ay dhamaysay dikrigii ay salaadii subax u kicisay wuxuuba sheegayba meesha gabadhooda laga haysto iyo sixirkii meeshuu yaallo allahu akbar subaxiiba sixirkii lasoo saaray gabadhii sidiibaa lagu soo doonay oo wixii haystay ilaahay subxaanahu watacaala uga dulqaaday marka dadka markay ilmahooda xanuunsan yihiin axbaabi fillaah waxaa ayagana inay cilaajiyaan oo macnihii ilaahay subxana watacaala ducada waaridka maqbuulo weeye inuu waaridku ilmihiisa u duceeyo inuu ilaahay subxana watacaala aqbalo inuu ilaahay subxaanahu watacaala ilmahooda caafiyo oo ayagu ay u sameeyaan cilaaj hadduu ilmuhu aad u xanuunsan yahay ilmo da-yaryana yahay baan ka dhex fahmaynaa qisadan maasha allah tabaaraka allah gabadha da-yar may ahayn laakiin qof iska dhalinyara oo laga yaabo cilaajka inaysan intaas aysan wadi karin waalidiintu ay wadeen baa laga yaabaa marka insha allah waalidiinta ay ilmahooda ka xanuunsan yihiin ama ayaguma xanuunsan dikrigan waa ujeedaan cajaa'ibtiisa maasha allah tabaaraka allah ilaahay subxaanahu watacaala one day wax walba uu ka shifay ilaahay gabadhooda uga caafiyey ilaahay subxaanahu watacaala uga furdaamiyey dhibaatadii intaasoo sano haysatay intaasoo jeer baa laga noqday guurkeedii marka oo sharaf darro iyo karaamo darro iyo dhaqan xumo iyo qalbi jab iyo waad dareemi karaa gabar inta lagaa soo doonay laga noqday xisaab aanay lahayn oo tiradii ka bateen
oo markaas ceebayn weyn baa imaanaysa ma fahantay axbaa filaa bulshada dhexdeeda marka waxaas oo dhibaato iyo gabadhii iyo mustaqbal xumo iyo macnihii nolosheedii ay noqotay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhibaatada intaa la eeg uga dulqaaday dikriga laa xawla walaa quwata illaa billah waa ilaahay oo xeelad iyo quwad malihin adaa garanaya gabadha meesha laga haysto ilaahow noo kashif intaas weeye maasha allah tabaaraka allah ilaahayna wuu u kashifay runtii dikriga laa xawla walaa quwata illaa billah intaa qisooyin aan warinaya gabar hadda ka hor u sheegay dikriga laa xawla walaa quwata illaa billah waxay tiraa Faadimo gurigay waxaa moodaa in macni lasoo duminayo qawbaba ka yeeraysa markii aan dikriga akhrinayo tira leerka waa la daminayaa bay tiraahday haba leerka guriga kusoo gada waa la gubanayaa aakhirkiina waxay tiraahday waxbaa sariirta anoo dikrigii wada sariirta hoosteeda waxbaa ka guuray anoo u jeeda buu ka guuray hadhowna markay shayaadiintii igu soo dageen ay hadleen waxay dhaheen waynu gubtay dikriga laa xawla walaa quwata illaa billah nagu gubtay gurigeeda dhan waa uga guuraynaa ka waran axbaabi fillah waa gabar Soomaaliyeed bay arinta qisadan laftirkeeda ana u sheegay dikriga kadibna ayada qisadaas ila soo wadaagto waa kasoo sheekeeyay marka insha Allah dikriga ku dadaal hada shayaadiin iyo isaga baxad mar walbana waa inaan ku dartid macni wardigaaga subaxii 100 galabkii 100 inta ka gaadhid oo akhrin kadid kumanaan hadaa gaarsiisid maasha Allah iyo 100 baa gaarsiisid mar walba وما شاء الله وذكر عجيبة وكل ما ليس إلهي سبحانه وتعالى إلى إلهي سبحانه وتعالى قرقاريا واي قرقارك إلهي بقود البنساء ورك إن شاء الله ولا لها قالقة أنت سكو إكينيا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته